madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa isaga oo garwaaqsanaya baahida loo qabo ilaalinta midnimada wadajirka iyo qarannimada Soomaaliya isla markaasna tixraacaya shirka ay bishan Oktoobar yeesheen madaxda dowlad goboleedyada waxa uu mar kale ku celinayaa baaqiisi ku aadanaa in shir wada tashi ay ka soo qayb galaan madaxda dowlad goboleedyasha kaas oo looga wada hadli doono xal u raadinta tabashooyinka ay qabaan madaxweyne Farmaajo ayaa u baaqay madaxda dowlad goboleedyasha in ay iyaga oo eegaya danta dalka dadka ay aqbalaan dalabka dowladda federaalka Soomaaliya si loo sii xaqiijiyo dadaalka lagu xaqiijinayo midnimada wax wada qabsiga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed uma ogolaan karno kala aragti duunaansho siyaasadeed darteed in gaabis uu ku yimaado guulihii sida adag aynu ku yagleelnay ee la xiriiray dib u dhiska dalka iyo hay-adaha dawliga ah wada hadal iyo midnimo dhab ah kaliya ayaa inoo sahli karta in aynu horey uga sii dhaqaaqno halka ay hadda taaganahay talo iyo cudud mid ah ayaynu ugu adkaan karnaa kooxda argagixisada ee al-shabaab waa sida warka loo dhigay madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka garaabayso wixii tabashooyin ah ay tirsanayaan dowlad goboleedyada isaga oo intaasi ku sii daray in wada hadal ku dhisan wada tashi isqancin iyo isu tanaasul ay diyaar u tahay dowladda federaalka Soomaaliya si loo dardargeliyo dadaalada dib u xoreynta iyo nabadeynta dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa intaasi raaciyay in uu xiriir la sameyn doono dhammaan madaxda dowlad goboleedyada isaga oo aaminsan in dhabaha wada hadalka iskaashiga iyo isu tanaasulka uu yahay midka kaliya ee lagu gaari karo nabad iyo horumar Salaad Maxamed Salaad Soomaali Sam News TV magaalada Muqdisho